saad arkaysaan boodhka halkan ka muuqda waxaa ku qoran madaxweyne soo dhowow xaflad agaasinkeedu sarreeyo oo jaacadda gullis ay ugu tala gashay inuu kala qayb galo madaxweynaha Soomaaliland ma ay dhicin waxaan leeyahay mudane madaxweyne shalayto markaad soo socotay waan ku soo dhaweeyay waxaan ku jirnay dadkii ku bacadka ku taagnaa teeda kalta waxaan nahay ardayda Soomaaliland ugu dambeysay jaamacad ka qalin jabiya waxaan muddo 2 bilood ardayda aan uga hadnay xafladaha qabsanayay Muuse Bixi baa idin imanaya isla haatan waxay ardaydu diyaar u ahayd inaad farxadda kala soo qayb gasho adoo waliba gobolkii ku sugan waxaan ku leeyahay madaxweyne ma noo sheegi kartaa jaamacaddii Burco hore waxaad ku dhaleecayso aad tiri waan la soo sheegin balse waxaad ogaataa golis inay ku sugaysay 2 bilood muddo ka badan oo ay farxadeed marba adiga dartaa u hakenaysay isla haatan aan ilaa shar anagu adigu soo dhaweyn anagu ku faraxnay inaad bari farxadana gala qayb galiso inaanu munaasabad fiican ku diyaarinay adiguna adoo gobolkii jooga ayaad madaxweyne maanta aad naga hadhay waxaan ku leeyahay waanu ka rajo dhignay sababtoo ah gobolka Togdheer uma aragtid inay dad ku nool yihiin jaamacadeedii Burco ayaad ka hadhay golis oo ku sugaysay oo 2 bilood xafladii farxadeeda dib loo dhigayay oo aan ka mid ahay ardaydii 2 bilood maalin ka dambaysa Muuse Imanay loo dhigay ayaad madaxweyne adoo gobolkii nagula sukan aad maanta noo iman weeday kaliya madaxweyne maxay ku yeelaysaa inaad noo hambaliyayso maxay ku yeelaysaa inaad farxadda noo timaado anagu bacad baan ku hurnay wadaan ku istaagnay calan baan ku qaadnay adigu madaxweyne maanta waanu ka rajo dhigro oo kaliya ayaa aniga iyo ardayda asxaabtayda la mid ka baxayba ay jaamacadda golis kaaga soo dirayaan mana maqnido gobolka waad ku sugan tahay iga mana foga madaxweyne halkan ka hadlay Burco gudaheeda iyo halkan ka hadlay waa isku mid laakiin waxaan ku aragnaa tii hore Burco waxaad ka tirin waan la soo sheegin waan ka fogaa laakiin adoo golis jooga oo dhabarkeeda jooga ayaad iman weeday madaxweyne intaas ayaa adiga sharaf dhacba kuugu filanba 200 arday ka badan ayaa maanta ku taagnaa shalayna ku taagnaa maxaa ku diiday madaxweyne inaad noo timaado maxaa ku diiday madaxweyne gobolkii baad joogtaa dadkaaga baad la joogtaa shalay bacad ku taagnaa iyagoo faraxsan aad maanta u timaado waxaan ku leeyahay madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay waanu ka rajo dhacnaa haddii aan ka hadlo dareenkayga maanta aad iyo aad baa farxad maalmaha ugu farxadda badan leh ayaan ku jirnay dhammaan ardaydayada farxad baa noo dhinayd farxadda kale ee aadka noogu soo farxadda badan waxay ahayd markii la yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi oo jooga gobolkii waxaan nooga dhinayd farxad aanan dad badan oo khayrkayga aan helin aad hesheen dhiirigelin ididiilo farxado badan baan galay inta kadib markii ay xafladii bilaabantay waxaan ku war helnay in la yiri madaxweynaha wafti buu soo diray isageedii ma iman ma nafrin madaxweynuhu ardaydii dalka gobolkiisa wada raaciyo inuu ardaydii dalka iyo mustaqbalkii dalka iyo ubixii dalka in wax la kala haro ayaanu filaynay inuu aad noogu imanaya baan u hanweynayn laakiin waxaanu jecelnahay mudane madaxweyne inaad kuwa dambe aanad saasoo kale u gelin si wanaagsan uga qayb gashid farxadda uga qaatid runtii hawsha yare dhacday in madaxweynihii isagoo jooga gobolkii oo in badan aanu sugaynay inuu maanta ima waayay aad iyo aad baan uga xumahay dee wax lagu dacaydiin baan moodi jirayoo qolyaha wadaro bay xidhan jireen linkaas madaxweynahaas kama soo qayb galo maxay yahay xafladahaas waliba siiba ama daayarta ama maxay yahay jaamacadaha soo qalin jabinaya ee dalka wax soo baranaya ahayd wax ka qabtaan marka dee tiimba rumowday imika waxaan aad ugu xumahay anaga oo faraxsan madaxweynihiina gobolka nagula sugan yahay isla maanta uu nala joogo aan arkaynay balse waan jeclaa in nagala soo qayb galo waayo madaxweynihii dalka anagana waa farxadeedii waan rajaynay isma waan lahayn wallahi anigu raay ahaan maanta madaxweynihii oo gobolka ku sugan idin kala soo qayb galayo markii horena waan ku diyaar garoonay inuu nagala soo qayb galo wallahi waan ogahay inuu shaqo kala hayo madaxweynuhu laakiin se wax kasta sidoo kala horeeyaan weeyaan waan faraxsanay daqiiqado yar madaxweynuhu siin karay balse laakiin se anigu aan madaxweynaha dhaleecaanan waan jeclaan inuu nagala soo qayb galo ardayda kale waa farxadoodu la joogo annaguna waan ku jeclaan kaayaga hargeysa meel kasta ha kala qayb galo laakiin se inuu maanta gobolka ku sugnaado nagala qayb galo aad baan ugu xumay madaxweynaha waxaan salaam baan gudbinay waxaan leeyahay madaxweyne dhalinyarada la soco hoos u eeg kule maanta waa maalin aad u weyn oo farxad oo maamuus leh kule waa qalin jabinteedii dad fara badan oo reer Burco ayaa qalin jabiyay Soomaaliland wax soo saar iyo wax tiro sameynaya dhinacna maanta muriga ka tago madaxweynaha Soomaaliland inuu filaynay inuu noo imanayo oo boorkiisii jaacad lagu wada haysiiyay ayaa noo iman taa madaxweyne adoo hargeysa joogi lahaa oo ku yara durbidan waxa la madaxweynuhu dan qaran ku mashquulsan balse maanta adigoo gobolka Burco jooga inaad hagardaamada inta laag noo geysato
madaxweyne aad iyo aad baan wallaahi uga xubnahay waxa weeyaan madaxweyne gobollada bariga waxay kaa tabanayaan turxaan fara badan madaxweyne waxaan ku leeyahay dalka iyo deegaanada bariga aad u taageer galbeedkana taageer dalkana sinaan iyo cadaalad ku maamul sakariye ilyaas jakarta warbaahinta star burco